madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta booqday xarunta safaaradda dalka Britain ay ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kulan saacado dheer qaatay la yeeshay danjiraha dalka Ingiriiska oo fadhiya Soomaaliya Neil Wigan iyo Saytoni Buldi oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka waddanka Ingiriiska waxaana kulanka madaxweynaha ku weheliyay safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Ingiriiska Cabdullaahi Maxamed Sanbaloshe iyadoona kulanka looga hadlay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka u dhaxeeya labada dal iyo sidii dawladda Ingiriisku qayb uga qaadan lahayd dib u dhiska iyo horumarinta arrimaha bini'aadanimada Soomaaliya markii uu soo ilaaday kulanka kadib waxaa si wada jir ah saxaafadda ula hadlay Saytoni Buldi oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka waddanka Ingiriiska iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. In the UK Parliament, we want to do everything possible to help and support Somalia. I think we see 2014 as a year in which we need to do everything we can to help. baarlamaanka Ingiriis ahaan waxaanu doonaynaa in aan sameeyno wax kasta ee lagu caawin karo Soomaaliya. sanadkan 2014 waxaan u aragnaa sanad wax badan la qaban karo oo aan Soomaaliya ka caawin karno in la abuuro fursado shaqo iyo ganacsi intaba. waxaan idin xaqiijinayaa in caalamka uu faham wanaagsan haatan ka haysto isbeddelka ka jira Soomaaliya. isla markaana dalka Ingiriiska ay joogaan qurba joog aad u fara badan oo firfircoon oo iyaguna diyaar u ah in ay ka qayb qaataan taageerada la siinayo waddankooda waxaanu kala shaqeyn doonaa qurba joogta sida loo caawin karo. waxaan rajaynayaa in Soomaaliya ay noqon doonto waddan barwaaqo ah maadaama haatan uu cagta saaray wadadii horumarka. So we want soo booqana maanta safaaradda Ingiriiska oo marti qaaday waxaan kula kulanay safiirka sida u jeedaan iyo Sir Tony Boldry oo ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska oo soo booqday asigana maanta meeshaan kula kulanay wax badan oo ku saabsan cilaaqaadka Ingiriiska iyo Soomaaliya ayaan aad iyo aad uga sheekaysanay iyo mustaqbalka safaaradda iyo doorka horumarineed ay nala qabanayso iyo sida dawladda Soomaaliya horumarkeeda dawladda Ingiriiska ay uga shaqeyn lahayd. Sir Tony oo baarlamaanka Ingiriiska ka tirsanay halkan noogu yimidana runtii wax badan oo asagana inuu su'aalaha iyo discussion iyo aaraa badan oo baarlamaanka Ingiriiska sida dawladda Soomaaliya oo u garab istaagi lahaa iyo baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka Ingiriiska sidii ay lafsadooda u wada shaqeyn lahayn ayaan ka hadalnay. marka mar kale fursad weyn ay ahayd maanta inaan intaas dhaxmarsano runtii waxyaabihii aan ka wada hadalnay inta badan isku mowqifan ka ahaynay oo ay la xiriir u badan yihiin arrimaha dib u dhiska Soomaaliya, arrimaha amniga iyo immediately dhulka sida kaalmo loo gaarsiinayo dadka Soomaaliyeed, abaaraha la soo sheegay hadda laga deerinay iyo sida wax badan oo amuurahaas ku saabsan dhammaan iyo guud ahaan dawlad dhisidda Soomaaliya ayaan aad iyo aad uga hadalnay saacado dheer aan isla joognay. Maxamed Bilegele Somsat Muqdisho.